halkani waa saldhigga militari ee ciidamada amisom ay ku leeyihiin tuulada xaaji cali ee degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana halkani ciidamada amisom ay degan yihiin in ka badan 3 sano iyadoona gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka shabeellaha dhexe cabdilaahi axmed shitaabe iyo qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka dawladda ee deegaanadani ay maanta kulan kula qaateen saraakiisha ciidamada amisom halkani oo xarun u ah ciidamada amisom waxa uu gudoomiyuhu kala hadlay saraakiisha amisom ee halkani ku sugan inay ka qayb qaataan sugista amniga degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe iyo waliba sidii loo xuray lahaa deegaano iyo tuulooyin dhowr ah oo ka tirsan degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe kuwa oo gacanta ay ku hayaan al-shabaab waxa uu gudoomiyuhu uu sheegay shir jaraa'id uu bahda warbaahinta ugu qabtay xarunta amisom kulanka oo ciidamada amisom la qaatay kadib in deegaanada al-shabaab gacanta ugu jira ee ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ciidanka amisom iyo ciidanka dawladda Soomaaliya oo isgarabsanaya ay gaari doonaan deegaanadaasi waxaan maanta booqasho ku nimid deegaanka xaaji cali oo ka tirsan degmada cadale gaar ahaan xerada ay ka degan yihiin ciidamada amisom aan u kurgalayno howlaha ka jira iyo amniga deegaanadaasi waxaan kulan la qaadanay taliyaha xeradaasi deegaanka xaaji cali waxaana ka wada hadalnaa qaabka iyo meelaha deegaanka amnigiisa wuxuuna ii sheegay inuu meeshaan ay diyaar u yihiin inay ku soo celiyaan gacanta degmada cadale inta ka dhigla gobolka shabeellada dhexe mar dhowna ay dhaqaaqi doonaan waxaan kaloo ka wada hadalnay inay amisom ay ka caawiyaan dadka deegaanka xagga caafimaadka iyo waxbarashada iyo dhan kasto ay ka caawi karaan inay ka caawiyaan aad iyo aadna ugu soo dhaweeyay waana iga ballan qaadeen inay isbitaalna ka dhisi doonaan deegaanka xaaji cali wax walba oo taakuleen oo awoodooda ay taana ay u sameey doonaan wax badan aan ka wada hadalnay waan isla meel dhignay aad iyo aad ay ii soo dhaweeyeen hadeertana waxaan tagi doonaa deegaano kale oo ka tirsan degmada cadale waan kala hadalnay waxyaabaha ugu badan oo kala hadalnay taas ahayd waxayna ballan qaadeen inay mar dhow ay si degdeg gacanta ku soo celi doonaan ayaga iyo ciidamada Hirshabeelle ee ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya mar dhowna waa tagi doonaan insha Allah waxay tagi doonaan masaajid Cali Guduud iyo Geergub ilaa iyo Rumirgood waa tagi doonaan insha Allah Ismaaciil Cabdulle Sabriye Universal TV tuulada Xaaji Cali degmada Cadale gobolka Shabeellaha Dhexe